magaalada muqdisho maamul inay yeelato waa muhiim jiddan waana taageersanaa magaalada muqdisho inay maamul yeelato بسم الله اللهم صل على محمد أنا قاعد فتح حسين وحان تاجر سنة هاي المجال مقدشة يالته معمول قابلات جوني أيضا إسكات ومحبنان مجال مقدشة وحيوصل نولد وحيابط شو معنى ولا عليه مجال مقدشة وعاوة اللي باتوين بهم بيوصل نولد شاود وإلا صياح حقي ذي أنا وحان تاجر سنة إن مجال مقدشة لقى عاصمة اللي الصومالي عاصمة ديني قات سيدا لا قات أيضا بحر تجا قات مجال مقدشة حقيقة ومقدس وحن شعبك مجال مقدشة كل هذا الدار معايا هالشيء مجال مقدشة قف إذين مقن ملهن قف سويسان ملهن قف ما ارتحقيني إيدو إني كانوا سويسان مجرو هالسوينا حقيني ودقا لما حقيني دعسلا حقيني ما رتي بين حكوب بحنا والملك المجد الأوضن مقدشة باسمه ملك الوطن هذا ملهم مقدشة باسمه محق بدنك لوكال أذيلاء waxaan sababtaas aan ku leeyahay waxay tahay Soomaaliya tuulo walba goob walba caga dhigto waxa ku magacaaban qabiil waxa iska leh qabiil magaalada walba jid walba guri walba geeda xataa wala kala leeyahay qabiilay ku magacaabay saas awgeed magaalada Muqdisho waa inay yeelataa xuquuqdeedii u goonidahay waa inay yeelataa maaragtay xaqeedii ay maaragtay la qaybsato gobolada kale maxaa ayada kaligeed ka dhigay gobol aan maamul goboleed la'aan 3 مليون oo dad ah baa degan ganacsatada Soomaaliya oo lacagta badan baa degan wadanka dhaqaalihiisa dhan baa yaala dadkaasi aaway xuquuqdoodii aaway maaragtay xaqi ay ku lahaayeen federaalka hadii la maamul goboleedyada isku yimaadaan magaalada Muqdisho ay ma fadhiso goob meeshaasi sababtoo ma lahan maamul u gooni ah dad xukuumay xaqan ka maqan 3 milyan u doodi kara oo dhahay dadkan أنا waxaan ka socdaa 3 milyan ee magaalada Muqdisho degan waxaan u doodahayaa ama rabaa in aan qayb qaato shirkan xaqi ay lahaayeen dadka degan magaalada Muqdisho iskama aysan cirkama ay soo dhicin dhulkama ay soo bixin waxa degan dad waxay maaragtay ay tahay in xaqoodii aana marnaba maaragtay la faquuqsiin waa dad runtii hal mid waa ku khaldan yihiin Soomaaliya waxay qaadatay federalism markii la qaybsanayay runtii ma aqaan meeshii ay jireen waxay ahayd inay ka qayb qaataan oo ay ka doodaan oo xaqooda ay dhacsadaan ay dhahaan maaragtay anaka reer Muqdisho hadaan nahay xaqeeni hana la siiyo runtii taasi waa ku khaldan yihiin waa dayaceen xaqoodii mar hore ahayd in maaragtay ay ka doodaan inay saacadan inay timaado maba ahaynba in Muqdisho maamul miya yeelanaysa mise yeelamayso laga murmo magaalada Muqdisho waa magaaladii maaragtay hadaan taariikhda waxa dib uga hadalno waa magaaladii keentay xornimada dalka Soomaaliya waa magaaladii lagu aasaasay SYL waa magaaladii lagu dagaalamay Talyaaniga waa magaaladii ka soo horjeeday maaragtay in wadankani gumaysi u haysto waa magaaladii xornimada looga dhawaaqay waa magaaladii maaragtay dawladii كو سوماليا كذا تاي كون سؤال بقول لحد إنك أي دقني تي حبتي تي سياد برا تي علي مهدي تي عبد القاسم يوحي كله كدم بيو رنبا ومجال الدنيا ومجال قديميا ومجاله runtii mudan inay Soomaalidu aad maaragtay iga fiijignaadaan oo inay taxadaraan waa magaalo dhinaca ka dhibaatooyin badan la soo kulantay wixii ka dambeeyay 1991 waxa ka dhacay dagaal sokeeye magaalada waa la isku laayay maaragtay fuquuq iyo dagaalo iyo dhibaatooyin barakac iyo dil iyo dhiig badan baa ku daatay marka magaaladani waxay mudan tahay in marnaba aan xaqeedii aan laga hadal oo loo daayo sida ay tahay hadii kale waxa dhacaysa dhibaatooyinkaas maxaa kamid ah ogow Soomaaliya burburkeeda waxa sababtay waa magaalada Muqdisho maxay ku sababtay magaalada Muqdisho mar haday dhibaato ka dhacdo waxay dhibaato ka dhacdo wadanka oo dhan ogow taas sa ogeed magaalada Muqdisho waa aad looga fiijignaada aad looga taxadiraa
inaysan marnaba dhibaato ka dhicin waxay automatic si toos ah si dadban baa u saameynaysaa dhibaatada magaalada muqdisho ka dhacda wadanka oo dhan dowladii Sabar inta dhicin ka hor waxaa jiray jabhadooyin badan oo ka dagaalama gobolo oo dhibaatooyin badan dadka u geysanay laakiin intii magaalada muqdisho deganeyd waxba saameyn kuma yeelan maalintii magaalada muqdisho ay soo gaareen jabhadahaasi wadanka waa burbur يعني dadka shacabka magaalada muqdisho waa ka duwan yihiin shacabooyinka kale dad degan oo xadaaradaysan oo nidaamsan oo horumarsan oo Soomaali jacayl ka muuqato laakiin maalintay kacaan oo ay maaragtay u diyaar garoobaan inay dawladdaasi degan magaalada ay maaragtay ku kacaan wax raja dawladdaasi ma lahan wax maaragtay horumar ay keenayso ma leh wadanka oo dhan wuxuu galayaa qalalaasa iyo burbur dambe saawgeed nin walba Soomaaliya waxaan kula talinayaa inuu magaaladan aad u ilaaliyo aad xaqeeda u dhowro isla markaasna aad loogu fiijignaado waxay u baahan tahay la daryeelo sababtoo waxa ku xiran noloshii Soomaaliya oo dhan waxa yaal dhaqaalihii suuqyadii ganacsiga businesskii maskaxdii wadanka jaamacadii ariiq soo baxdo dhan ee Soomaaliya oo jaamacadaha u aada magaalada Muqdisho isgaarsiinta wadanka waxay taala magaalada Muqdisho dhaqaalihi wadanka oo dhan wuxuu yaala magaalada Muqdisho horumarkii wadanka Soomaaliya oo dhan wuxuu yaala magaalada Muqdisho saawgeed magaaladani magaalo laga hadli karay ma ahan in xaqeedii hadda ma leedahay iyo ma lahan yaa degan iyo arrimahaas hadda laga murmay runtii ma ahayn waxay ahayd in 10 ku barano wixii dhacay ku 1990 koodii wixii ka dambeeyay oo 10 ilaabaana Soomaalida waxa malaysaa inay taariikhda iloobaan si degdega waxa maaragtay aniga ku talinaya Soomaalida in magaalada maamulkeeda la taageero meel walba laga banaan baxo la yiraahdo magaalada Muqdisho xaqeedii waa in la siiyaa si ay magaalada u degto shacabkeedana u sakacin maalmaha waxaan maqlaynay in ay arkaynayna in dadka degan magaalada Muqdisho maaragtay abgaalka in ay maaragtay biloobeen inay shirar sameeyaan runtii wali waxay dawladdu waa taageersanahay laakiin waxaan kaliya u doodaynaa waxay tahay xaqeynay laakiin muddo haddii xaqaas waayaan waxa imaanaysa isbedel in maaragtay iraado waxaan ku doonaynaa xoog mar haddii xoog yimaadana hadde ninka awood leh baa wadanka u haraaya saawgeed dawladda farmaajo waxaan kula dardaarmayaa inay ilaaliso xuquuqda dadka degan magaaladan intay ku degan tahay oo aad xukunkeeda iyo nidaamkeeda haysato waa inta dadka ay ku taageersan yihiin maalinta shacabka magaalada Muqdisho ay ku kacaan Soomaaliya oo dhan baa ku kacaysa saawgeed fadlan ilaali shacabka magaalada Muqdisho dadka degan dhinaca kale Soomaaliya waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan ogaanay ama aan qaadanay in Soomaaliya federal loo kala qaado qabiil walba meel buu tagaa geed buu dagaa goob buu dagaa goof buu dagaa nin walba waxaa la yiri federaal aan qaadano nin walba meeshuu deegaanka u lahaa hatago taas macnaheedu waxa waaye ninkii Garowe dega Garowe ha aado ninkii Kismaayo dega Kismaayo ha aado reebeedhamad sidoo kale Hirshabeelle sidoo kale magaalada Muqdisho dadka degana maaragtay waa inay federaalka ka qayb qaataan waa xaq ay u leeyihiin waxay baryayaan ma ahan marka dadkan maaragtay caasimada isku programiyay inay magaalada Muqdisho tahay caasimad isla markaasna in loo wada simnaado ay tahayna taas waxaan ka leeyahay magaalada iyadoo caasimada ay gobol noqon kartaa Garowe waa caasimad gobol Soomaaliya saasay tahayna waa magaalo qabiil degan yahay isla markaasna dad maaragtay lagu magacaabo maamulkeeda iyo looga dambeeyo maaragtay wixii magaaladaas la xiriira baydhabo raxweyn oo dhammaan degto qayb kamid ah degta dadkaas looga dambeeyo Kismaayo ayadu baabkeeda lama geli karo waa magaalo maaragtay laga guursi badan hadba sanad walba nin baa maaragtay guursada ka taliya jowhar dad baa degan lagu yaqaana qof kale ma soo faragashan karo magaalada Muqdisho waa tabtaas oo kale Hargeysa salahan waa caasimad Soomaaliland soo taayadana dad iyo qabiili waxa degan maaragtay dad lagu yaqaano ana marnaba la isku faragashanin walaalayaal marka saawgeed aan taageerno in maamul gooni iskid u taag loo sameeyo magaalada Muqdisho